magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland maanta waxaa si rasmi ah uga furmay madasha qaran ee geedka Garawaaga taasoo ay soo qaban qaabisay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland iyadoo socon doonta muddo 2 maalmood. Madashan oo ka qabsoontay Hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa waxa ay isugu yimid daneeyayaal kala duwan oo isugu jira khubaro ku xeel dheer arrimaha deegaanka, beeraha, biyaha, xoolaha, dhaqaalaha iyo dhinacyo badan oo kale kuwaasi oo si ballaaran u naaqishay dhibaatooyinka deegaan, bulsho iyo dhaqaale ee geedkan iyo xalalka waara ee lagu maareyn karo si looga faa'iideysan karo isla markaasna lagu xakameyn karo fiditaankiisa. Madashan waxaa furay agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland Mudane Maxamed Cabdilaahi Ducaale. Hadal halkaas uu ka jeediyey waxa uu kaga warramay ujeedada ay shirkan iyo madashan u qabteen. waxa uu sheegay in geedka Garawaagu khasaare iyo faa'iidaba leeyahay loona baahan yahay in laga faa'iideysto si fiditaankiisa loo hakin karo. marka ugu horeysa waxaa sharaf noo ah inaan nagala soo qayb gashaan madasha qaranka ee Garawaaga Soomaaliland ama waxa la yiraahdo madasha maareynta Garawaaga oo markii labaad ay loo qabsoomaysa. waxaan u mahad celinayaa ka soo qayb galayaasha sharafta leh ee dhamaantiin halkan jooga qayb meesha doontaan baad ka socotaan. geedka Garawaagu wuxuu ka mid yahay dhibaatooyinka haysta deegaankeena kaasi oo waxyeelo kala duwan ku haya haday tahay dhirta, beeraha, biyaha iyo guud ahaanba badqabka deegaanka. wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladu iyadoo taa ka duuleysa waxay muddo dheer ku baraarugsanay kana shaqeynaysay sidii horumar uga noqon lahayd abuurista qorshayaal lagu wajahayo maareynta geedkan kuwaasoo dhinacyo badan looga faa'iideysan karo waana sababaha maanta halkan aad u joogtaan. sidaa daraaddeed shirkeynu maanta wuxuu daanayay inaynu dardar gelino yeegleelidda madal iyo kulamo mudaysan oo aynu ka yeelanayno arrimaha khuseeya geedkan Garawaaga annagoo kaashanayna wasaaradaha iyo hay'adaha wada shaqaynta dhow leenahay. waxaanu maanta idinku soo dhaweynaynaa madasha maareynta Garawaaga Soomaaliland ama waxa la yiraahdo Somaliland Pro-Service Management Platform. madashan waxay noqon doontaa mid u taagan mideynta muruqeena iyo maskaxdeena taasoo aynu wax badan kaga qaban karno dhibaatooyinka geedkan Garawaagu inagu hayo. waxa kaloo platformkan ama madashan inoo fududeyn doontaa inaynu ku doodno talo dhiibasho ka yeelano istiraatiijiyada aynu ku wajahayno maareyntan waana sababta maanta aynu halkan u fadhino. waxa kale noqon doontaa mid fududeydisa go'aan qaadasho wanaagsan waayo marka araar la isweydaarsado xogna la helo ayaa go'aan sax ah la qaadan karaa. waxa kaloo ay noqon doontaa madal aynu ra'yiga iyo xirfadaha kala duwan ku soo aynu dhamaanteen isku weydaarsano kuna soo bandhigno. sharaf weyn ayay aniga gaar ahaan ay tahay inaan maanta goobjoog shirka ka ahaado taariikhiga ah. ugu dambeyn waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo saaxiibadayada hay'adda WHH oo Thomas horkacayo oo runtii gacan firfircoon iyo kaalin firfircoonba ka geystay socodsiintan haday tahay mid farsamo iyo haday tahay mid dhaqaale waana lama huraan inaanu sii wadnaamo xoojino wada shaqaynteena. madashan waxay yeelan doontaa guddi farsamo sidaa daraaddeed gabagabada shirkeena waxaynu ku dhawaaqi doonaa xubnaha hagi doona. wasaaraddeedu ahaan wasaaradda deegaanka waxay noqon doontaa hoggaanka madasha maadaama runtii mandate-ka hawshan uu xagayga yahay. waxaa loo baahan doonaa xubno kale oo arrimaha nagala shaqeeya. waxaana runtii arrinta cidii si gaara u danaynaysa ay la xiriiri kartaa Yusuf